waa geesigii weynaa ee muslimiinta Camar ibn al-Caas. Camar ibn al-Caas wuxuu ka mid ahaa saxaabadii nabiga, gaar ahaan qaybtii hogaaminta ciidamada. Sidoo kale waxa uu noolaa ilaa xilliyadii oo uu ciidamada hogaaminayay, ilaa xilliyadii 40 iyo dhowr markay maraysay hijrada nabigu. Camar ibn al-Caas waxa uu ahaa hogaamiye, waxa uu yaqaanay dagaalka iyo qaab u dagaalanka ayuu aad u yaqaanay. Waxa uu ahaa hogaamiye weyn oo ciidamada muslimiinta wadan markii la furanayo isagu ka mid noqda mar walba qaybta ugu horeysa ama ciidanka ugu horeeya ee loo diro marba goobaha muhiimka ah iyo goobaha la dhaqaajin waayo. Haddaba qisada tan ee ku wado ayaa waxay tahay Camar ibn al-Caas xilliyadii loo soo diray in uu furto wadanka Masar ayaa waxaa dhacday in uu ciidankiisu meel degay. Dabeetana markii ciidanku uu meel dego, ninka ciidanka wata waxaa loo sameyn jiray khaymo yar ama af Soomaali ahaan bangalo ma idhaahda, meel yar oo sida ninkii Qadaafi la oran jiray markii uu meel tago ama wadamada reer galbeedka uu tago ama meel laga marti qaado uu qaadan jiray sharaaciisi yara uu xiran jiray oo kale baasaas oo kale meel iyaga loogu dhisi jiray. Dabeetana ciidankii markii uu siini meeshii ka bax magaalo Iskandariya la yiraahdo furashadiisa loo diyaar garoobay ayaa waxaa la arkay Camar ibn al-Caas meeshii loo dhisay oo ay shimbiri ukuma ku samaysatay. Dabeetana arrintii ayaa loo sheegay, ciidankii ayuu hakiyay. Waxa uuna dhahay shimbirtaas inta ay ilmahaasi uga korayso duulimaad ka baranayso ma baxayno, halkan ayaan deganaanaynaa. Maanta ma is leedahay qof madax ah ayaa saa yeelaya, hogaamiye ciidan ayaa saas yeelaya, ma is leedahay? Maxaa si diidan ayaad is leedahay in dadkaas wanaagsan aan ku dayano si ummadeena, ayaga xayawaan ayay daryeelayeen, si aan ummadeena iyo shacabkeena Soomaaliyeed ee rafaadsan aan u daryeelo. Waa mahadsantihiin dhageysigiina. Asalaamu calaykum.